حسدك وأرك حبيبك وأرك هدان دايرتين وكعين وأن بلديحو أفريقيا ودن بينا دقيقة مينو دقيقة مينو دقيقة مينو دقيقة مينو دقيقة مينو أبدكي الله 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 اسكتوني كين الله 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 اسكتوني كين magacay waan Nabadoon Cabdikaafi Deendeen waxaan ku sugannahay degmada Afraaqo waxaa isugu nimid annaga beesha reer Cabdi Ciise iyo reer Ramcaale waxaan ka wada tashanaynay nabadda sidaan u hirgelin lahayn oo xoojin lahayn annagoo ehel iyo qaraabo oo in badan kala maqnayn oo dad badan oo qaraabo ah awal hor isku aqoon meesha isku barteen oo hor u ahayn xil iyo xigaalo iyo qaraabo iyo wiil abtigiisa wiil adeerkiis ayaan waxaan ku heshiinay inaan nabaddan abtiyaadku u adkayno oo aan hirgelinno oo aan gaarsiino meel kasta oo Cumar Maxamuud iyo Sacad ilaa aan sii wadno xeerar iyo qoraalana aan ka soo saarno halkan ay tahay meesha koowaad ay ka bilaabato gobolada iyo deegaamada dhammaan aan mari doono annagoo u wada jirna kana wada shaqayn doona nabadda adkeynta iyo sidii loo xoojin lahaa magacaygu waa Cabdinuur Cabdullaahi Xirsi Cabdinuur ilka daab ku magac dheer waxaan salaamahayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegnaa galabta inaanu joogno magaalada degmada Afbarwaaqo oo ay nagu soo dhaweeyeen ninka la Suldaan Xasan Macalin Saciid oo maanta qada sharaf noogu sameeyay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan ka wada hadalay in carrada maaragtay degmadan iyo aagan la nabadeeyo oo nabad laga dhigo waxaanu marka ugu baaqanaa labada beelood oo Cabdi Ciise iyo reer Nimcaale ah ayaga baa maanta meeshan isugu yimid insha Allah waxaan rajaynaynaa inay gaadho ummadda Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan Cumar Maxamuud iyo Sacad aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa nabadda maanta meeshan ka bilaabatay waa Nabadoon Abshir Maxamed Jaafar guri ku magac dheer waxaan joognaa isbitaalka degmada Afraaqo anaga wafti ballaaran oo hadii la ismada reer Cabdi Ciise ay kamid yihiin oo garaad jaamac hogaaminayo iyo heer degmo iyo heer hadii la ku haya dhaqanba in baan maanta meeshan ugu soo booqday haddana waxaan joognaa isbitaalka hadii la kula Afraaqo degmada Afraaqo nabad iyo guul baan hadii la ku rayay ku tashanay gobashu u horeysay arag u horeeyay weeye dabadeedna waa sii wadeynaa inaan hadii la kuna ilaa garaac iyo jariin aan gaarsiino laba beelood hadii la ku reer Ramcaale iyo reer Cabdi Ciise waxaan ku baaqaynaa dhammaan Cumar Maxamuud iyo hadii la ku Sacad inay ka soo wada qayb qaataan waxaana intaasna waxaan ku darahayaa xasidka oo arag xabiibka oo arag xasidka oo arag xabiibka oo arag Soomaalidu hadii la ku ayo isku diina isku dhaqan isku afa unba ilaahay cilad wuxuu uga dhigay hadii la qabyaaladii xasidnimo iyo hadii la ku uur ku hubin iyo waxaan loo baahnay sharciga ogolay islaamnimada ogolay dirisnimada ogolay hadda maanta waa ka cudub bilaysan waxaas waa iska quraan saarnay waa iska soo dhawaanay waa iska fahanay waana hordhiciga gobashu u horeysay dhammaan dadkaan u helbiyahay dal wada leeyahay deegaan wada leeyahay diin wada leeyahay af wada leeyahay intaas oo wadanahay ilaahay wuxuu waafajiyay inaan maanta gobashu u horna dhigno tii labaadna waa noo dhici doontaa tii saddexaadna waa noo dhici doontaa beelweynta hadii la ku Cumar Maxamuud iyo Sacadna waa ku soo dhawaynaynaa Suldaan Xasan Macalin Saciid oo yani gobashu noo fidiyay waxaan isugu nimid oo ku soo gabagabeynay oo isugu nimid haddaan labada beelood nahay nabadgelyadii iyo deegaanka inaan ka ballaarino inaan meel walba tagno haddii lahaydno ilaa budbud ilaa garacad ilaa waxaa weeye meel kasta inaan waxaa weeye ku soo marno nabadgelyada dadka waxaa weeye aan u soo bixino haddii ilaahay idno siminaar inaan soo siino dadkii ay colaadda wax mar dhexe ay dhex madhay haatanna aan rabno inaan ku bilowno haddii ilaahay idno dadkii dhallinyaradii gabdhihii waayeelkii waxgaradkii in wixii hore laga baxay maantay in guriyihii laga dhisay insha Allah in laga dhisi doono haddii ilaahay idno degmada Afraaqo in laga dhisi doono haddii ilaahay guryo macquul ah annagoo ka wadan haddii ilaahay inaan isku imaan doono haddii ilaahay idno isbitaalku waa inoo dhisan yahay guriyihii waa ka dhisi doonaa inaan meel walba inaan ku mari doono wafti ballaaran oo meel walba la soo laabatay degmooyinka dhan soo madha annagoo ka wacyigelinayna dadkii dhallinyaradii iyo gabdhihii iyo waayeelkii iyo waxgaradkii gaarsiinayna inaan isku gobol iyo isku masaajid iyo isku isbitaal iyo wada fadhi inaan haddii lahayd